السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان سلامية دمان أخيارتا كحيران يوتيوب مع العقال مقال كان إن شاء الله تعالى وكدونا عندنا مقال ظهره وحانا إن شاء الله تعالى شن يتمن حكمة وقصة بسن نرشة وإن شاء الله تعالى بدري دونا نرشة هذا ونفرد دونا إن شاء الله تعالى سيدا أرتينايو الباب عصب هذا بقى حكمة كوبات وحا أي نقونيسا مقال كان أنكو ده فرايو جوج السوغيتانك وقتك الصحراء waqtiga aad joogtid ka dhig mid sax ah inta badan waxay dadka ay ku wareeraan ama ay raadiyaan waqti sax ah ay wax qabtaan xilligaas ayaan wax baran doonaa xilligaas ayaan ganacsi bilaabi doonaa xilligaas markii waqtigu saas noqdo ayaan saas yeeli doonaa haddaba ma jiro wax la yiraahdo waqti sax ah waqtiga aad joogtid ka dhig midkii saxda ah haddaad wax baranaysid aad wax baran kartid haddaad ganacsi bilaabaysid aad ganacsi bilaabi lahayd حكمة اللبات أخيرا وحي نقونيسا دادك قول درada ka baqa ayaa ka guul darro badan ku guulaystayaasha hadaad ka baqdid inaad tilaabo qaadid hadaad ka baqdid in aad guul dareysid adiga ayaa ka guul darro badanaya kuwa guulaystayaasha sababtuna waa maxay wax tilaaba oo aad qaadaysid male halkaas ay noloshaadu taagnanaysa xikmadda saddexaad akhyaari waxay oranaysaa dadka saboolka ah waxa ay ka hadlaan dadka kale halka dadka hodanka ana ay ka hadlaan fikrado dadka saboolka ah bulshada ayay xantaan dawladda ayay wax ka sheegaan maanta dhan wax ciyaar ayay falanqiyaan ciyaarto ayay caayaan kuwa ayay amaanaan maanta dhan dadka kale ayay ka hadlaan halka dadka hodanka ah ama mustaqbalka hodan noqon rabana markay isku yimaadaan ay isdhaafsadaan fikrado ganacsi ha ahaato nolosh kale ha ahaato maxaa fikrado noloshooda wax ku taraya isdhaafsadaan حكمة أفراد وحين نقونيسا ما وقتها هداد ددالي ويسو انتاد يرتهي ددالي دونتد حلي آدان ددالي كرين وحالكيسا مانتي بلشة بدن او دلنيارة او بدن او داد اللباتانكا صدنكا كوچرتا او هدانا وقت قودس كدياعية هدانا واحد ددالة عن سمينيني وحيه لكن هلمانسينيهين إن أي ددالي دونان حلي أيسان ددالي كرين حلي قفكو ودأيهي ددالك إيو وحقبتكونا ay dhibahayaan xikmadda shanaad waxay noqonaysaa ma ogtahay inaad maalin kasta aad soo kacdid iyadoo akoonka ay kugu jirto 86,400 oo sekan 86,400 oo sekan haddii aad ka cabanaysid in aad waqti haysan haddaba ogow markaad subaxii soo kacdid intaas oo sekan ayaa akoonka kugu jirta intaas oo sekan akoonka biri kuma soo laabanayso hadaad ka faa'iidaysatidna waa ka faa'iidaysata hadaad ka faa'iidaysan weysidna وعلى ترتيريا وواحد بلاونيسا مالين عصب حكمة اللحاد وحين نقونيسا هقادن دالي عينتا كاغتي ماده قف آدن قادن لهين تلديسا انت بدن waxa laga yaabaa in qof saka dhaleeceeyo in qof uu ku caayo in qof uu wax ka sheego in qof uu yiraahdo hataa waxa ma qabtay hadaba qofkaas hadii uu yahay qof aadan qaadateen taladiisa ha qaadan dhaleecayntiisa ee meel iskaga tur xikmadda toddobaad akhyaari waxay noqonaysaa dadka wax wagado sidii aad jeclaan lahayd in wax laga gato waxa ka saab bulsho badan oo dadka masaakiinta ah ee ganacsatada yaryarka waliba haysta intay maanta wax ka gurguriyaan oo dhibaan oo inaysan waxba ka gadan ama ay wixii wax micno la aysan ka gadin marka sidii aad u jeclaan lahayd in wax laga gato dadka wax wagado waliba ganacsatada yaryarka ah waxaan ku tareen lahaa in la caawiyo oo xitaa wax aad u baahnayn inaad marka qaar iska sii gadatid حكمة السيدات waxay noqonaysaa dadka guulaystayaasha waxay diiradda saaraan guusha halka dadka ma guulaystayaashana ay diiradda saaraan guulaystayaasha dadka guulaystayaasha hore u soo sheegay waxay inta badan diiradda saarayaan wixii ay ku guulaysan lahaayeen maxaa horumar ku keenaya maxaad qabsan kartaa waxaas diiradda saaraan laakiin dadka ma guulaystayaasha waxay diiradda saaraan isla dadka guulaystayaasha iyagu bay falaqayaan waa xaasid waa wax matare waa maaliya isla weyn yahay waa saas dadka guulaystayaasha ayay diiradda saaraan ama se isbarbardhig ayay sameeyaanoo qofkaas kordaan noqon lahayd asaga qofkii uu diiradda saarayo xikmadda sagaalaad akhyaari waxay noqonaysaa ninka badmaaxa ah ha kala tashan sida dhulka macdan uga soo saari lahayd inta badan waxaa arkaysaa qofka markuu tala raadinayo khaasatan bulshadeena wuxuu la tashanayaa qof walba oo ka soo horbaxa qof walba oo isleeyahay wax ayuu kugu beerin karaa laakiin taas cagsigeeda waxaa la rabaa qofka aad la tashanaysid waxa aad kala tashanaysid in uu aqoon u leeyahay qofka badmaaxa ah ee badda ku jira muxuu kaaga garanayaa
sida macdan looga soo saaro dhulka talada aad weydiisidna ama talada uu ku siiyana waa mid khasaara ah. Xigmadda toddobaad waxay noqonaysaa maankaagu wuxuu aaminaa waxaad mar walba u sheegtid. haddaad mar walba u sheegtid in aad tahay qof sabool ah, qof aan waxba qabsan karin, qof caawinaad u baahan, haddaba intaas ayay maskaxdaada kuu soo celinaysaa. laakiin haddaad cagsiga u sheegtid horumarka, wanaagga, inaad wax qabsan kartid, inaad hawl badan awoodid, intaas ayay haddana kuu soo celinaysaa. akhyaar xigmadda 11 waxay noqonaysaa inta ay ku caawiyaan waxaa ka badan inta ay ku dhibsanayaan. inta badan qof kastoo caawinaad ay weydiisatid, yani bulshadu intooda badan caawinaad dadka markaa weydiisatid way jiraan dad wanaagsan. haddana laakiin iyagoo kuu qoslaya oo ku caawinaya waxaa jira inta badan inay ku dhibsanayaan, yani in badan ayay ku dhibsanayaan laakiin adigu ma dareemaysid. marka isku day in aad yareysid caawinaadda aad dadka uga baahan tahay. ku dadaal dadka inaad wax weydiisatid wixii muhiim ah oo markaas ka xiran, laakiin isku day in aadan dadka wax walba weydiisan. xigmadda 12 waxay noqonaysaa ha qarash garaynin waqtigaaga si aad lacag u kaydiso ee qarash garee lacag si aad waqti u hesho. waxaan kala jeedaa yani waqtiga ma aha wax la soo celin karo, ma aha wax dib u soo laabanaya, laakiin lacag ayaa dib u samayn kartaa. marka haddii aad kala dooranaysid in aad waqti bixisid iyo in aad lacag bixisid, ha noqoto inta badan in aad lacagta bixisid. xigmadda 13 akhyaar waxay noqonaysaa haddaad rabtid inaad horumar samaysid, horumar naftaada. bulshadu inta badan waxay ka hadlaan horumarka, laakiin waxay hilmaamaan in horumarku uu ka bilaabanayo ama ay ku xiran tahay sida ay nafsadooda u horumariyaan. haddii ay noqoto dhanka xirfadaha, aqoonta, cibaadada, caafimaadka, intaba waa inaad nafsadaada horumarisaa. xigmadda 14 waxay noqonaysaa qof walbaaba intuu akhriyo ayuu caqligeeda leeyahay. yani waxaan kuu sheegayaa meeshaan muhiimadda ay leedahay wax akhriska. waxaa jirtay maamaayo hore oo Soomaaliyeed oo dhihi jirtay qof walba intuu cuno ayuu ciidamaya. yani haddaad cunto badan cuntid ciidan fiican baa yeelanaysaayoo xoog baa yeelanaysaa, waxbaa qabanaysaa. cagsigeeda haddii aad in badan akhrisid caqli badan ayaa kuu siyaaday. xigmadda u dambaysa ee 15 waxay noqonaysaa saaxiibka ugu wanaagsan ee aad yeelan kartid ma ogtahay inuu yahay quraanka kariimka. inaad la saaxiibtid, inaad maalin walba akhrisid, in aad markasta oo murugo ku soo weerarto ama aad dareentid ciriiri, in saaxiibka kuugu dhow ee aad raadisid uu noqdo quraanka kariimka. waxaan filayaa in 15 xigmad ay ku caawiyeen. waad ku maasantahay daawashada muuqaalka. ilaa muuqaalka xiga, bye bye.